khilaafaadka dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa sii xoogeysanaya kadib markii dowladda Kenya joojisay qorshe hore u ahaa in mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya lagu siiyo fiisa ku galka dalka Kenya garoonka diyaaradaha ee caasimadda Nairobi. wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo saaka gaaray magaalada caasimadda Nairobi ayaa loo diiday in uu baasaboorkiisa diblomaasiga ah ee Soomaaliya uu ku galo, halkaas oo ay wasiirka ku kaliftay inuu isticmaalo baasaboor shisheeye oo uu haystay. Sidoo kale wararka laga helayo magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiir ku-xigeenka tamarta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya Cusmaan Libaax Ibraahim iyo senatarro kale ah Ilyas Cali iyo Samsam Cali oo ka tirsan aqalka sare ay caawa ku xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee caasimadda dalka Kenya. Saraakiisha waaxda socdaalka dowladda Kenya ayaa diiday inay fiisaha ugu dhuftaan mas'uuliyiintan ka tirsan dowladda Soomaaliya oo lagu xayiray garoonka Jomo Kenyatta, iyada oo beri oo Talaado ah la filayo in lagu celiyo magaalada Muqdisho oo ay mas'uuliyiintu ka yimaadeen. Kenya ayaa la aaminsan yahay inay tallaabadan uga gol leedahay sidii cadaadis ay u saari lahayd dowladda Soomaaliya inay ka laabato dacwadda badda ee hortaalla maxkamadda caalamiga ah ee ICJ. Tallaabooyinka kale ee Kenya isticmaalayso ayaa ka mid ah soo dhoweynta iyo u dhoola caddeynta Somaliland oo toddobaadkan gudihiisa ay u direen wafdi culus oo hadda ku sugan caasimadda Hargeysa, iyada oo dhowaana joojisay duulimaadada tooska ah ee Muqdisho ilaa iyo Nairobi, dibna u soo celisay in dayuuradaha ka yimaada Soomaaliya lagu baaro Wajeer ka hor inta aysan gaarin Nairobi. Wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa ilaa hadda wax war ah ka soo saarin wejigan cusub ee dowladda Soomaaliya ay la soo baxday iyo xirfadaha cadaadiska ah ee soo kordhaya. Alool.com, Muqdisho.